kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka uu idin hayo channelka xaqiiqa news. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xaaf oo ka baxay heshiiskii dowladda federaalka dibna u soo ceshtay mas-uuliyiintiisii galmudug, al-shabaab oo soo bandhigay ergadii soo dooratay brofesor jawaari, dowladda soomaaliya oo war rasmi ah ka soo saartay kiiska ciise tarabuun. maxaa looga hadlay kulankii cali mahdi, sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud, iyo muran sababay in toogasho lagu dilo waardiyihii qaaska ahaa ee boqorka sacuudiga. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan channelka xaqiiqa news. maalin isniin ah, taariikhduna ay tahay 30 Sebtembar sannada 2019. kusoo dhawaada warkan ka xaqiiqa news. madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku dhawaaqay in uu dib ula soo noqday wakiilashadiisa maamulka galmudug ee uu bishii Julaay u dhiibtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya si ay u daadihiso geedi socodka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka galmudug. war-saxaafadeed uu soo saaray madaxweyne Xaaf ayuu ku sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay muddo 3 bilood natiijo la'aan la taaban karo sameyn weyday doorashooyinka. Xaaf ayaa cadeeyay in uu si degdeg ah u soo magacaabi doono guddiyo kala duwan oo ku shaqeynaya arrimaha doorashooyinka, dib u heshiisiinta iyo xallinta khilaafaadka galmudug. sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta iyo waxgaradka galmudug in ay dhistaan galmudug loo dhan yahay. waxaad la socotaan wararka uu idin hayo channelka xaqiiqa news. al-shabaab ayaa soo bandhigay ergadii soo dooratay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. xarakada al-shabaab ayaa deegaanka Bulafulay ee gobolka Baay ku soo bandhigay qaar ka mid ah xubnihii soo doortay baarlamaanka federaalka kadib markii ay odayaashaas qaateen amar horey al-shabaab ay u soo saareen. al-shabaab ayaa sheegay in ergadan oo ah 76 qof ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii doortay xildhibaan Maxamed Cismaan Jawaari oo horey u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka ka hor inta aan lagu ridin dagaal ay ku qaadeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. guddoomiyaha al-shabaab ee Baay iyo Bakool Sheekh Cabdullaahi Macalin Geedow iyo xubno uu ku jiro Sheekh Cali Katiin ayaa dadkaas kula hadlay munaasabad ay qabteen shabaabka. odayaashan ay shabaab soo bandhigeen ayaa qayb ka ah dufcaddii 3aad ee iska diiwaangelisay xarakada al-shabaab oo bilihii lasoo dhaafay oo ay u tagayeen ergooyin badan. waxaa ugu dambeeyey 51 ergey lagu soo bandhigay munaasabad ka dhacday degmada Bu'aale, kuwaasoo iyaguna sheegay in ay kala soo laabteen falkii ay horey u sameeyeen sida ay al-shabaab sheegeen. madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa shalay hooyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxa ay ku booqdeen madaxweynihii iyaga ka horeeyay ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. kulan saacado qaatay ay 3daas madaxweyne guriga Cali Mahdi ku yeesheen, waxaana la sheegay in ay uga hadleen xaaladda guud ee dalka iyo xayiraadii dhowaan garoonka diyaaradaha aadan cadde loogu geystay sheekh shariif sheekh axmed xilli uu ku wajahnaa magaalada Kismaayo oo uu uga qayb geli lahaa caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kulankaas, welina lama shaacin waxa ka soo baxay oo ay si wada jir ah u soo saareen 3daasi mas-uul. magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday kulamo kala duwan oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka, kuwaasoo ay wadeen siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, waxayna kulamadan xoogeysteen wixii ka dambeeyay
xayiraadii lagula kacay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed. markale subax wanaagsan akhyaaray meel kasta aad nagala socotaan. halkan waa channelka xaqiiqa news. qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin muran sababay in toogasho lagu dilo qofkii ka dambeeyey dilka waardiyihii gaarka ahaa ee boqor salmaanka sacuudiga. waa hagaag. dowladda Kenya ayaa shalay shaacisay in dalkeeda uu 24kii bishan soo galay cabdiwaaxid khaliif cabdi oo loo yaqaano ciise tarabuun, kaas oo dowladda Soomaaliya oo ay horey u sheegtay inuu ahaa madaxii amniyaadka xarakada shabaab ee muqdisho. warka Kenya ayaa la yaab noqday sababtoo ah iyadoo wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale 19kii Juun shaaca ka qaaday in ciise tarabuun laga soo qabtay suuqa weyn ee Bakaaraha una gacanta ugu jiro dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. hadalkaas oo maalintii shalay ay warbaahinta iyo weliba baraha bulshada si weyn u qorayeen ayaa waxaa ka dambeeyay war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda aadan isaaq ahna kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in ciise tarabuun uu yahay muwaadin Soomaaliyeed horeyna u dhammaystay xukunkii ay maxkamadda milatariga ku riday, isagoo sheegay in muddo 2 sannadood ah uu qaatay ciise tarabuun xabsigii ay maxkamadda ku riday, haatanna uu yahay muwaadin Soomaaliyeed xukunkiisa dhammaystay. qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay daawadayaal. halkan waa channelka xaqiiqa news. sababay in toogasho lagu dilo waardiyihii qaaska ahaa ee boqorka Sacuudiga. waardiyihii qaaska ahaa ee daba taagnaan jiray boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis ayaa geeriyooday kadib markii uu rasaas ku furay nin ay saaxiibo ahaayeen, kaas uu dhexmaray muran shakhsiyadeed sida ay sheegeen booliska waddankaasi Sacuudiga. Jenaraal Cabdulcasiis Al-Faqam oo habeennimadii Sabtida booqanayay saaxiibkiis ayaa la murmay Mamduun bin Mashaal Al-Ali. bayaan ay soo saareen booliska ayaa lagu sheegay in Cali uu ka baxay guriga ay isaga iyo jarnaalka ku sugnaayeen oo ku yaala magaalada Jidda waxyar kadibna uu ku soo laabtay isagoo qori wato, kadib uu rasaas ku furay jarnaalka. Jenaraal Fakham ayaa dhaawac culus oo rasaasta lagu furay ka soo gaaray oo u geeriyooday cisbitaal ku yaala Jidda. 7 ruux oo kale ayaa ku dhaawacmay dhacdadaasi. waxaa dadka dhaawacmay ka mid ah 2 ruux oo ku sugnaa guriga saaxiibka uu Jenaraal Fakham booqashada ku tagay, iyo sidoo kale 5 askari oo ka qayb qaatay israsaasayntaasi. warkii aad kala socoteen channelka xaqiiqa news subaxnimadan waa naga inta ee waad ku mahadsantihiin akhyaari sida quman oo qaaliga ah aad ula socoteen warkeena subaxnimo.